Sheekadan waxay ku dhacday Caasho iyadoo ka shaqaynaysa kalkaal hospital habeen ka mid ah oo ay ida iyo saaxiibteed Caasho ay fadhiyaan emergency-ga. Xilligaas saacadu waxay ahayd 8:15 habeenimo. Ayagana waxay shaqaynayeen habeenkii. Bukaan ku jiro isbitaalka kalkaal ayaa caawimaad dalbaday, weliba qolka afraad. Kadib waxaa baxday Caasho waxayna aaday qolka si ay u ogaato bukaanka. Waxayna aaday dabaqa labaad ee qolka afraad. Waxayna isdhahaysay saacada miyuu bukaanka qabtay xanuun zaid ah, waa inaan ka war doonaa. Kadib markay qolka afraad ee tagtay, albaabka gashay waxay aragtay bukaanka inuu caafimaad qabo. Kadib ayay weydiisay, maxaa kugu dhacay wacdi? Xanuun miyaa ku hayo? Kadib bukaanka ayaa dhahay waxaa imaatay kalkaaliso. Kadib waxayna gashay musqusha. Kadib waxay fiirisay Caasho dhankaas iyo musqusha. Kadib ayay dhahday ani iyo kalkaaliso kale bis ayaa joogno, kalkaaliso saddexaad ma jirto. Waxaa laga yaabaa inaad riyoonayso. Kadib bukaanka ayaa dhahay aniga ma riyoonayo ee waan arkay. Kadib waxay dhahday isdeji, waxaa laga yaabaa xanuunka xanuunsanaysid inuu yahay. Bukaanku wuxuu dhahay zaid ayaan u cabsanayaa. Caashana waxay ugu jawaabtay habaqin waan joognaa anaka waan na soo wici kartaa. Kadib bukaanku ayuu isdejiyay. Caashana way ka soo baxday waxayna soo aaday dhankaas iyo emergency-geeda. Bukaanku wuxuu dhex fadhiyay qolkiisa isagoo agagaaraha eegaya kana baqaya kalkaalisadii cabaar ka hor u imaatay. Caashana sheekada waxay u sheegtay saaxiibteed. Saaxiibteedna way ayay fikirtay. Kadib ayay dhahday waxaa laga yaabaa inuu qar waayay mise oo riyo aragyay. Kadib Caasho ayaa dhahday mugdiga oo ku jiro inuu ka baqa ayaa laga yaabaa. Markii cabaar la joogay oo waagi bari rabo, bukaankii hadaayo ayaa arkay wax argagax leh. Indhaha ayuu kala qaaday. Kadib wuxuu arkay kalkaaliso nooc kale ah oo af qaloocan leh iyo indho balaaran iyo kor zaid u cadaan badan. Kadib kalkaalisadii afka ayay kala furtay wayna qoshashay. Kadib bukaankii cabsi awgeed ayuu la dhimo gaaray ayuu wadnaha la istaagi rabay. Wuxuuna wacay kalkaalisadii rasmiga ahayd. Waxayna wacday emergency. Isla qolka afraad ayaa caawimaad dalbanooday. Haddana Caasho ayaa iyadoo yaaban u dhahayso bukaankan caawa maxaa qaldan. Ayadoo tartiib u socota ayay aaday qolka bukaanka iyadoo zaid u cabsanayso dhahayso wadnaha ma istaagay bukaanka. Laakiin wax ka daran ayaa qolka ka dhex dhacayay. Bukaanka markii ay u imaatay waxay weydiisay maxaa kugu dhacay. Bukaanku wuxuu dhahay isla kalkaalisadii hadaayo arkay haddana imaatay. Kadib waxayna gashay meesha lagu qabeysto waxayna u tilmaamay musqusha. Caasho yaaban ayaa dhankaas iyo musqusha eegtay wayna aaday. Waxay rabtay inay hubsato musqusha bahalka ku jiro ee sheegaysa naagtan. Markay musqusha furtana waxay aragtay inuusan qofna ku jirin ee musqusha cidla tahay. Bukaankii ayayna u sheegtay waxayna dhahday musqushu waa nadiif, waxa ku jiran malahan, waxaad arkaysid waxaa laga yaabaa inaad qarwowsid. Kadib ayay dhahday ma qarwooy ee run ayay iga tahay. Kadib ayay dhahday amba ma arkin wax musqusha ku jiro. Kadib ayaa bukaankii dhahay run miyay ka tahay hadda waxaa rabaa inaan musqusha galo. Caashana waxay ugu jawaabtay waa gali kartaa oo wax ku jiro malahan anaa ka hubo. Bahal ku jiro anuu idil lahayo musqusha galay. Kadib bukaanka si aayar ayuu albaabka u fiiriyay asigoo dhahayo caawdi lagu dili lahaa miya. Waxayna soo furtay musqusha wayna gashay si ay xaajadeeda u soo gudato bukaanka. Waxayna xiratay albaabka. Caashana waxay u soo laabatay saaxiibteed ee la sheekaysanaysay. Kadib bukaanka markuu musqusha dhameystay wuxuu eegay dhankaas iyo miyaaradda. Wuxuuna furay biyo si uu wajiga gacmaha iskaga dhaqo. Laakiin wuxuu ka shakiyay meesha qabeyska oo ka qaaday daa. Laakiin waxba maysan ku jirin. Ayay soo laabatay si ay haddana wajiga gacmaha u dhaqato. Marka hore way ka duwan tahay. Bukaanka gadaashiisa waxaa joogay waxay arkaysay wayna isku naxday. Dhankay madaxeeda u dhaqaajisay wuu la aadayaa. Hadba dhinacsi u eegaysay way ayay isku naxday. Ayadoo naxsan oo musqusha ka bixi rabto waxaa dabay leerkii waxaana hor imaatay naagtii wayna ceejisay. Saacada kadib Caasho waxay go'aansatay inay bukaankii soo ogaato oo ay marnaba bukaanka muusan la soo hadlin. Waxayna soo aaday dhankaas iyo bukaanka. Markii albaabka soo furtay waxay aragtay arrin naxdin leh. Bukaankii oo dhintoo dhulka yaalo.
3 bil ka bacdi maxaa dhacay? La soco part 2. Haddaad dhamaadkana la soo gaarteen waad mahadsantihiin. Channelka subscribe noo sii saara siina share gareeya mahadsanidin my family.